Somaliland. Je voulais remercier aussi le ministre Abdurrahman Abdullahi Iro. Somaliland is making you step to its long and patient journey toward a full recognition. التي اعترفت بجمهورية أرض الصومال في حين ذاك دولة إسرائيل. بيانا متى بكمتي Somaliland لبتدا كاتاتو ننقافنا. تسا قبل يسا ما يولد أنتنان Somali man إثنيسوس بايبا. عدوين. إلى أصلا مهدنا الحمد لله بالله هاي. وحكرنا مهدنا قلنا حنبليان دلنا هاي لما Somaliland. لما الدولة دولة يسكت تكتبان هاينه. وادريون ساملا وادري دمركاه. مقالة لا حمر خره هرتا. وحكوا إلالية إذا نجاني بكوا إلالية. Somaliland نوض لا عصرتاي. إسماعيل عمر جلنا وحنا. وإسماعيلو إن رزقه كاغو أي حدي Somaliland لا اعترافه. ما أنت وحي نوتهاي فرحة قالية عيد ويبي نوتهاي. waxaanu mahadnaqaynaa dawladda ku dhiiratay ee albaabkay noo furtay ayaa si gaara ugu mahadnaqaynaa madaxda kale iyo dawladaha kale sida lagu soo jiranaya laydinka mid kala dheereeya waan leenahay lambar 2 iyo lambar 3 dhammaan inagoo ictiraaf leh oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ku guuleeyay wixii 35 sano aynu sugaynay oo Ilaaha mahad leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliya mid baa ka oranaya laba dal oo jaarayno ahayn oo 60 isku darsaday imigana kala goostay tarjabuutina waxa la ahay hadina baa la yiraahdaa tani cadceed soo baxday cid baa sac ku qaranaysa ayaan hore aan ka hadlay arrintan oo saadaaliyay maalintan madaxweynaha la hadlaynay lahay war ictiraafkiiba madaxweyne waaligan helaan lahay baan saadaaliyay ayaatan ictiraafkeena waa ayaatu madaxweynaha dawladda uu dalka qabsaday soo ku yahay wuu inoo cad yahay Israa'iil baa la inooga hadliyay aad bay u mahadsan yihiin waxa la yidhi dahab oo barni laga doortay gowrac baa u soo baxay maalintaasi inta la dagaalamay maanta ee af inuu dagaalamay qalbiga la dagaalamay siyaasadda inuu dagaalamay maalintaana aad dib loo dagaalamayeen oo waxay bixinayeen rasaasta oo waxay bixinayeen xoog oo waxay bixinayeen lacagta waxay bixinayeen shidaalka إلا أنت هسي مانتا الإسلام أو النوكل قاتي أو نجا قبطي أو ظلمي إذا تقال كي حسوق إنه يقول حكى هذا شيء ما يجي إذا شتت الكورة أو مانتا إذا شتها إسراف ما تهلل ويقول أنا رب الإبل واللي بيت ربي يحميها أنا واقر قيلنا ربي إيسياهي نون دبابة طبعا أنا ربي يا صغير تحلو مهمسن وحويان مسلم نبان كوكو دقين مؤمن نما خاصة قال محست كودا ورود مغان ستا داما هل كان ابوان كاكا شاقي تدينتي كما ينام بحين داد اسلامين ونهاي محل لنا ما انت ريقب ليو ما انت محل لنا هاي ما انت محل لنا هاي قول بين لنا هاي Somaliland is making you step to its long and patient journey toward a full recognition. This recognition did not come overnight, and it was given not freely. It was earned through a peace, stability, democratic practice, and responsible for self-governance and more than 3 decades. qarannimadeena aynu sugaynay dhowr iyo 30 sano ee uu soo daatay dhiig badan halgan badan dadaal badan iyo tacab badan ayaynu dabaaldegaynaa maanta Somaliland ha jirto ha waarto Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato waa maalin weyn waa maalin aynu xusano waa maalin taariikhi ah waa maalin aynu xusano ictiraafka Somaliland waxaan jecelnahay inaynu u mahadnaqno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo guusha iyo ictiraafka inoo keenay waxaan u mahad celinayaa adduunyada garatay maanta inay Somaliland soo jeedsadaan ee dalweynaha Israa'iil ka mid yahay ayaan u mahad celinayaa ka Soomaaliga ku hadla ee dariskeena ay wadamada dariskeena cadaawad ay noo muujinayaan waxaan leenahay war waa guul inoo soo wada kordhay ee qira tani waxay ku timid tacab fara badan dadaal ay geliyeen dadkii dad u soo shahiiday xornimadan dib loo soo noqono dadaal ay geliyeen xukuumadii kala dambeeyay ee doorashadeena ku imanayay dawladda Israa'iil oo kow ka noqotay inay ictiraafto Somaliland
wadamada kalena waxaanu ka codsananaa iyaguna insha allahu tacaala inay cududda ku kordhiyaan oo codkooda ku daraan waxaan runtii ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumadda iyo madaxweynayaashii hore runtii iyaguna tacab geliyey siday somalilan maanta noqon lahayd somalilan tahay maanta tahay shacabkuna doorka muhiim bay ku lahaayeen runtii waa door aan la qarin karin جمهورية سوماليلاند جمهورية فتية استقلت في 26/1960 من الاستعمار البريطاني وأصبحت دولة مستقلة في حين ذاك واعترف بها أكثر من 30 دولة في العالم. أول دولة التي اعترفت بجمهورية أرض الصومال في حين ذاك دولة إسرائيل نشكرها أكثر من مرة. وقد وذلك كيهي مدحوينها جمهورية سوماليلاند oo siyaasadiisii iyo ballanqaadkii uu soo ballan qaadayay intii uu ololayaasha ku jiray waxyaabo badan isagoo qabanaya aynu ogeyn diblomaasiyaddii aynu ku dooranay aynu ogeyn inuu maantana gudkaalkii ugu weyneed noogu dhuftay kana midho dhaliyey cadowga somalilan ha jabo ha dhaco ha dilaaco ha maroro dilaaco الرب كم تيدل الدنيا شاف ملو أرجته بيي ولكن يا توبيا بيا لما تابع كم تي سومال لبسيتها كاتاتو ننقافنا. وقرن فقاري سومالي لا نقول بينو لنا هاي. على كات قعنت قوها يسوع قف قصدو على كات قعنت قوها يسوع وحكو قرن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحلينو بباهي هاي. inaynu kor u qaadno ilaalino Somaliland gool madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo guushii hantiyey goolkii dhaliyey 34 sanadood wixii aynu buur dheer iyo mid gaaban geed dheer iyo geed gaaban xoogeen iyo xoolaheeni baynu iskugu geynay walaadkan walaalayaal dunidu waxay maqashay xaqiiqo inaga inoo cadayd muddo dheer taasoo inaynu nahay qaran iyo dal madax bannaan aqoonsiga inooga yimid dalka Israa'iil oo ah runtii hadiyad diblomaasiyadeed dhinaca kalena wuxuu noqonayaa sixitaan taariikheed mid sharciyeed iyo mid akhlaaqeed intaba uu noqonaya. Je voulais remercier le Premier ministre de l'Israël qui nous a dit vous méritez d'être 55e pays d'Afrique. Merci beaucoup. Somaliland, je voulais remercier aussi le ministre Abdelrahman Abdullahi Iro. ورئيس إلهي بينو مهدنا غينا مالين تنقيمة عليه غاية عليه ومدى جمهورية سوماليلاند من بريرا قلبي دا يدبال دقينا أقونسيغو خير نو ينوسيدا شركي سنوانو ديار قروبينا عدو سوماليلاند ما أنت مالينو كاود بلاي مجلتو ciidankii ugu horreeyay afraad loola jiray baan asaasay maantana aan joogo iyadoo ictiraaf Somaliland ay heshay aniga taasaa farxad weyn ii ah dhammaan dadka reer Somaliland meel kastay joogaan hambalyo baan leeyahay dhammaantiin waa idin hambalyeynaa waxaa kaloo farxad weyn ii ah gobolka Gabiley inuu bareejeeyay caasimadii dalka oo uu isagu imaka marka gobollada la yidhaahdo gobolka Gabiley baa hogaaminayay isu soo baxyadii la sameeyay ee Somaliland loogu dabaaldegay ictiraafka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dadkii baa bilaabmay carruurteena dib u tahriibi mayso dadka xamar leh wax baanu idiin imanaynaa ayaa ka soo horreeya jabaabiirtii baa ka soo horraysa rag iyo dumarba ciidankaanu galaynaa waanu difaacaynaa wixii inoo yimaado waynu cashar baynu u dhigaynaa soo maaha qaranka difaacayna dumarkii diyaar ma yihiin dhallinyaradii diyaar ma tahay cuqaashu diyaar ma tahay ka sidnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo noo soo diray inaanu munaasabadda kala soo qayb galno inaad ka guddoontaan salaanta madaxweynaha ma ka guddoontaan madaxweynaha Somaliland ha jirto ha waarto nabadgelyada aan ilaashanno guusha aan gaarnay aan xajisanno waxaa u furma albaabo badan yaa u furma albaabadaa badan wax badan oo horumara baa ka soo gala
هلو ديار قروبه إلى العالم كلا يرى حليل يا معامل يا ولا شقين هلو ديار قروبه وحكا إيمانا يا مالقشي وحكا إيمانا يا مشاريع وحكا إيمانا يا ولا شقين هير كستاني waxaan halkan uga mahadnaqayaa dalka Israa'iil oo dalkii ugu horeeyay oo mar labaad ictiraafka iyo aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland dib inoogu dhawaaqay maanta waxaynu taaganahay guul waxaynu taaganahay maanta baasaboorkeena jamhuuriyadda Somaliland maanta adduunyada waa laga ictiraafsan yahay ma jiri doono baasaboor dambe oo aynaan lahayn oo aynu ku faanaa baasaboorkeenaynu ku faani doono insha Allah wadamada kale ee soo socdana waynu soo dhawaynaynaa ictiraafkeenu soo wadaa waxaan leeyahay dhammaan gobolka reer Gabiley mar walba qadiyadeena reer Somaliland number 1 baad ka ahaydeen maantana waxaad heshaan himiladiinii dhammaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland adkaysigii uu sameeyey dadaalkii uu sameeyey juhdigii uu soo geliyey madaxweyne kasta oo u sii dhiibay maanta ilaahay wuxuu inagu sugay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan uu ku guuleeyo guushaana uu siiyey sabab magaceeda uu yeesho annaguna aanu noqono xukuumadda ictiraafka jamhuuriyadda Somaliland waxa leeyahay waa guul